رئيس الوزراء دولة فدرالك Soomaaliya حمزة عبدي برre ayaa maanta kulan muhiim ah la yeeshay madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden kulanka labada mas'uul oo dhacay intii lagu guda jiray shirka guud ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee ka socda magaalada New York waxa diiradda lagu saaray xoojinta iskaashiga iyo xiriirka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Mareykanka. Ra'iisul Wasaare Xamse ayaa uga mahadceliyay dowladda Mareykanka iyo shacabkeeda taageerada joogtada ah ee ay siiyaan dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan dhinacyada muhiimka ee amniga dib u dhiska dowladnimada iyo dagaalka ka dhanka ah argagixisada caalamiga ah sidaas oo lagu daabacay bogga xafiiska ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre. Ra'iisul wasaaraha iyo madaxweyne Joe Biden ayaa mar kale xaqiijiyay madax banaanida midnimada gobolnimada dhuleed ee Soomaaliya iyaga oo qiray in ay muhiim u tahay xasiloonida gobolka geeska. Kulankan ayaa waxa qayb ka ah kulamo dacoodyo oo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre intii uu ku sugnaa kala fadhiga madasha golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo halkaasi ka wado kulamo gaar ah oo uu la yeeshay madax kala duwan oo ka soo qayb galay.